dalka Soomaaliya oo lagu tiriyo dalalka Islaamka ayaa ka mid ah dalka diinta sida weyn looga faafiyo. Soomaaliya waxay leedahay culimaa u diin mar walba u taagan faafinta diinta Islaamka iyo ka jawaabidda xaaladaha soo diriyo. Sidoo kale waxay leedahay hogaamiyayaal diinta Islaamka takhasus ka haysto iyo maadigaba. ubad walba oo soo barbaaro wuxuu ku soo barbaariyaa diinta Islaamka iyo maadigaba. Waa dhif iyo naadir maanta inta jaahilka ah oo aan wax aqoon ah haysan. Cilmiga diinta maanta jeebka ayuu kugu jiraa oo waxaa ka baran kartaa social mediaha. Ciriiri kuma qabno waxbarashada oo rafaad uma marno sidii jiilkii naga horreeyay. Su'aal walba oo kugu soo dhacdo miidiyaha ayaa ku qoraysa, isla markaana sheekh ka mid ah culimaa u diinka Soomaaliyeed ayaa kuu soo baxayo isaga oo ka jawaabayo su'aashii kugu soo dhacday. Sidoo kale online-ka ayaa maanta ubadka wax lagu bari karaa adiga oo joogo qurbaha sida ay sameeyaan inta badan qurba joogta Soomaaliyeed. Diinta Islaamka maanta waqti kasta ayaa aqoontaada kordhisa kartaa adiga oo rafaad u marin ama safar u gelin. Isku soo wada duuba intaasi oo nimco ah oo ay bil nagu galleystay maanta waa dayacnay. Soomaaliya caasimadeeda waxaa ku soo batay dadka faafiya diinta Kirishtanka kuwaasi oo qarashaad ku bixiyo. Dadka diinta Kirishtanka faafiyo waxay inta badan beegsadaan dadka dhibaataysan iyo dadka caqligoodu yar yahay. Magaalada Muqdisho waxaa ku yaalo meel ay isugu imaadaan dadkan Kirishtanka ah oo mar walba u soo taagan sidii ay dadka u dhumi lahaayeen ayaga oo shaqaale ibliis ah. Muqdisho waxaa ku yaalo meel ay dadka faqsiga xiiseeyo ay isugu imaadaan. Maandooriyaha iyo zinadaba waxay noqdeen wax la soo iibsado oo lala tago hoteelada caanka ah. Dadka faafiya diinta Kirishtanka badana goobahaasi ayay tagaan ayaga oo beegsanayo wiilka ama gabarta aan gada karin wixii ay isku xawili lahaayeen, waxayna u ballan qaadaan mushaar ka badan wixii ay u baahnaayeen. Haddaba gabartii jirkeeda ku bannaysay hal xabo oo maandooriyaha bilibiliga ah, ka waran haddii loo ballan qaado $100, maxaa ka filan kartaa? Madaxda iyo hoggaanada sarsare waa ay og yihiin goobahaasi oo fasahaadka ka socoyo, balse ayaga ayaaba laga yaabaa inay canshuur ka qaadaan. Culimaa u diinka sidoo kale waa ay ka gaabiyeen inay ka hadlaan fasahaadkan oo ka socda dalka Soomaaliya. Gabdhihii oo alle amray inay guryahooda ku nagaadaan ayaa maanta garoomada kubadda cagta ah ka ciyaarayo. Fasahaad nuuceeno dhiman mar hadday gabdhihii garoomada kubadda ka ciyaarayaan, maxayse uga aamusan yihiin madaxda iyo culimaa u diinka Soomaaliyeed? Sow mas'uuliyad kama saarno, mase keliya waxay fiirsanayaan lacagaha ay canshuurta uga qaadanayaan. Haddaba maxaa ka dhalan karo faqsiga dalka gudihiisa ka socdo? Sideena looga hortegi karaa? Facebook dhex daadsan, kuwa telefishinada taagan oo wada qaaqaawan oo ka labis xun kuwa dariiqa marahayaan ka xishoon maayo. Caadi u noqoto say ishiisu ugu dhacaysay oo qalbigiisa maanta dhan sun ugu soo gudbinaysay ayaa qalbigiisii madoobaaday. Markaasoo waxa weeyaan waxa halkaas daadsan oo haween qaawan oo jirkeeda muujinaysa, mid heesaysa, mid cayaaraysa, mid isqaawinaysa, mid afcaal kala samaynaysa. wax alla wuxuu ka arkaya mobilkiisa dhexdiisa ka daawanayo ama telefishinka gurigiisa yaala uu ka fiirsanayo, wax allaaliya wax dhiba uma arko. qalbigiisii baa madoobaaday ilaa qalbigii uu gaaray laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkar. nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam qalbiga fitna ayaa ku dhacaysa ilaa fitnadaasi waxa weeyaan marka dambe qaluubta qaarkeed ay gaarsiiso inuu qalbigii munkarkii uusan munkar u arag, macruufkiina uusan macruuf u aqoon, midna uusan aqoon, oo wax walba iskaga darmaan. waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqdaa. weliba waxaad ogaataa kuwa ku jira mobilada inay ka khatar badan yihiin oo ka sii khatarsan yihiin kuwa daahirka ah oo dariiqa iyo suuqyada ku arkaysa. maxaa yeelay kuwan ayaa ka xun xagga labiska oo ka liita, ayaga ka liita. waayo waxa ayaga halka caalamka isu soo dhigahaya oo halkaad ka arkaysid inaad suuqa ayagoo kale ku aragtaa way yartaa. kadaalika waxa weeyaan waxa shahwada kicinahaya oo qofka mar walba ku kicinaya waxa weeyaan waxaan mobilkiisa mar walba ugu jira oo saacad kasta iyo waqti kasta uu heli karo. dad ayaa ayagoo daawanaya oo waxaas waxa weeyaan ayagoo sameynaya waliba faaxishadii oo aad iyo aad u fiirsanahaya oo dhagaha samaacadu ugu jirto oo waxa daawanaya ayaa qaraxyadii qaarkood la kulmay.
markaasaa waxaa la soo qaada asagoo googa'ay oo meyda iyo moobeelkiisii oo wixii ay saaran yihiin oo heestii ka daaran tahay ayaa la soo qaaday qaar ka mid a iyagoo masaajid ka soo baxay baa qaraxi la kulmay kala nasiib badan qaar ayaa iyagoo hoteelada magaalada ku yaala qaarkood ka tumanahaya oo khamradii cabahaya oo haween sidaasa waxa weeyaan la tumanahaya ayaa wadnuhu istaagay oo halkaa ku baktiyey walaalayaal waxa weeyaan faaxishadan faaftay oo khatarta ah asal waxa u ah wax badan oo anagu aan gacmeheenna ku iibsanay moobeelkan qaracagta ka bixinay waxa guriga aan soo dhignay internetyada aan furannay oo aanan taxakumahayn oo aanan ilaalinahayn ayaa waxay keenayaan waxa weeyaan inay faaxishadaani faafto oo agteena caado ay ka noqoto nacuudu billahi min dalik islaamku waxyaalaha uu xarimay waxaa ka mid ah khuruuju الnisaa mutabarrijaat mutacatiraat haweenku inay baxaan ayagoo waxa weeyaan qaaqaawan oo aan xijaabnayn oo sidii jaahiliyada u baxaan oo cadar iyo udgoon ay marsadaan islaamku waa xarimay ilaahay wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikun haweenku guryahooda ha ku nagaadeen haweenka lala hadlayaa waa walaashaa waa xaaskaaga waa gabadhaada waa inaad gaarsiisaa mas-uuliyad ayaa kaa saaran ilaahay wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikun guryahooda ha ku nagaadeen walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa sidii jaahiliyadii hore usoo banbixi jirtay iyaynan u banbixin ayagoo mutacatiraad ah oo dhar fiican aan qabin oo aan xijaabanin ayay baxaysa haweentii waxaa la amra markay baxaysa inay xijaabato yudniina calayhina min jalaabiibihin ayaa la amray waxaa la amray hadalkeeda inaysan jilcin walaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waxaa laga reebay inay ziinadeeda muujiso walaa yubdiina ziinatahun quruxdooda ayaynan muujinin waxaa la amray indhaheeda inay laabto waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin waxaa loo diiday cadarkii iyo udgoonkii nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ida istactarat ilmar'a famarat cala alqowm fahiya kada wakada hadday haweentu cadar soo marsato oo qoomkii ay soo marto waxa weeyaan waa sidaa iyo sidaas yacni zaaniya waa haweenay zaaniyada xataa waxaa la amra dariiqa markay marayso inay gees ay marto ee aynan waxa weeyaan ajaanibta iyo ragga maraya aynan dhex qaadin waxaas oo dhan waxaa la ilaalinayaa cifada qoyska muslimka ah iyo mujtamaca muslimka ah ayaa waxaa laga joojinaya laga xirayaa nuuc kaste oo ay faaxishada iyo xumaanta ku imaan karto aynu isweydiinno gabdhaheennu maxay ku aadaan iskuullada maxay ku aadaan jaamacaadka maalin maalmaha ka mida waxaa fiidhisaa gabadhaadu marada ay qabto oo jaamacadda ay ku aado iyo midda ay iskuulka ku aadayso iyo midda markay qaraabada soo salaamaysa ay ku aadayso ma ilaahay subxaanahu wa tacaala tii uu sheegayba yudniina calayhina min jalaabiibihin ma jalaabiibtii ilaahay sheegay oo jirkooda ha ku raariciyeen yidhiba mise waa mid kale oo aan jalaabiibti ahayn adigu isweydii hadday tahay middii ilaahay uu sheegay ilaahay hortiisa maalinta qiyaamaha waa baxsanaysa haddaad mas-uul ka tahay oo lacagta oga soo bixisay middii ilaahay sheegay middii cagsigeeda ahayd waxa aad la dagaalamaysaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ogow waa amarkii ilaahay uu bixiyey ayaad cagsigiisa dagaal aad ku haysid baa lacagtaada ku bixinaysa ogow waxaa kugu soo maqan xarbi min allah ilaahay xaggiisa waxaad u diyaar garowday inaad u bandhigtid gabdhahaaga faaxishada iyo xumaanta waddadii xumaanta ay ku gaari lahaayeen baana u samaysay bal u fiirso waxaad koontarooshaa xijaabkooda waxaad koontarooshaa xaggay u baxayaan waxaad koontarooshaa wakhtiga ay waxbarashada aad u diraysid ma ka yimaadaan oo mise kama yimaadaan waxaad isku daydaa inaad ogaatid meeshay wax ka baranahayaan meel macquul ah oo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ilaalinahaya miya mase waa meel rag iyo ajaanib inta laysdhex dhigay oo moobeelada la kala qortay oo dariiqa la wada fadhiyo oo meel walba waxa weyaan lagu wada sheekaysanayo wax kala soocanba aan la arag ilaahay qiyaamo ku weydiin mahayo maxaa gabadhaada uga saari weyda jaamacadda maadiga ah laakiin ilaahay wuxuu ku weydiinayaa maxaad u beri weyda diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wa risqi ilaahay baa haya oo ilaahay baa noo kafaalo qaaday oo risqi waa la helayaa oo wixii ilaahay kuu qoray waayi maysid ee gabadhaada diinta ilaahay iyo khayrka kula dadaal bulshadan mujtamaca ah xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad aad looga naxo nooc kasta oo diinta ilaahay ayna amrayso waxa weeyaan mujtamaceenni waa nooc aan u samaysnayn inuu qaataba waxayna dadkaani ka soo baxahayaan waa guryo xala ay ku hoydeen bay saaka ka soo dareerayaan
guryaha ay ku hooyanayaan miyaan dad mas-uuliyiinay joogin miyaan aabbayaal ilaahay ka baqayaa joogin aabbihii salaaduu aadayaa masaajidkuu aadayaa ma darsigiibuu imaanayaa carruurtii iyo reerkiina waxba kama quseeya nacuudu billaahi min dalik ogow markaa dhimatid xisaabtaasi waa kuu taala ilahay ogtiisa subxana wa tacaala asbaabaha zinada keenaya oo islaamku xarimay waxaa ka mid ah dukhuulu الrijaali الأjaanib calى اlmarأة